بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan daahfuray guddi aan dhawaan magacaabay guddigaas oo u xil saaran inay aruuriyaan keediyaan shuruucda dalka laga soo bilaabo markii aan xorriyada qaadanay ilaa hadda iyo hadday suurtagal tahay inay aruuriyaan waqtigii dalka Soomaaliya uu ku jiray maxamiyadda hadafka laga leeyahay aruurinta sharciga iyo shuruucda dalka waa in la ogaado dalka inuu lahaa shuruuc dhaqangal ah ay ugu waaweyn yihiin dastuuradii dalka ka soo jireen iyo dastuurka kumeel gaarka hadda dalka ka jiro iyo xeerarka ciqaabta iyo habraaciisa xeerka madaniga iyo habraaciisa xeerka hanaanka garsoorka iyo xeerarka kala duwan shuruucda abtirsiye ay leedahay abtirsiyada shuruucdana in la ilaaliyo waa arrin loo baahan yahay si dalka taariikhdiisa iyo shuruucdiisa loo ilaaliyo taas waxaa dhici kartaa markii la haayo shuruucda dalka oo qof kastoo doonayo inuu sharci mise hindi sharciye diyaariyo mise dib u eegis ku sameeyo inuu isweydiyo su'aalo kooban su'aalahaas oo ah sharciga hadda diyaarin rabto ma jira sharci noocaas hor dalka mu u yeeshay waa in la heli kara sharcigaas meeshuu yaalay kadibna sharciga iyo hindisa sharciyeedka mise dib u eegista lagu saleeyo sharcigii hore u jiray maadaama ummadda taariikh leedahay oo shuruucdana ay lahayd su-aasha labaadoo in la isweydiiyo ah baahi ma jirta oo sharcigan loo sameynayo haddii sharcigan hore u jiray dalka uu leeyahay baahidiisa ma jirtaa baahida hadday jirin sharci in la sameeyo ma aha baahidaas hadday jirtana waa in sharcigii hore oo jiray lagu noqdo qodobkii ka hadlaya arrinta la rabo baahida keentay qodobkaas in dib u eegis lagu sameeyo oo lama ogol in sharci ka baxsan sharcigaas aad soo samayso maadaama sharci asal yaalo horena u jiray qodob mise laba qodob mise saddex qodob in laga bedelo loo baahan yahay sharcigaas waa in lagu koobnaado oo sharcigaas wax laga bedelo taas waxay keenaysaa dalka shuruucdiisa iyo abtirsiyada shuruucda ay leeyihiin in la saxo way oo haddii oo sharci gooni ah loo sameynayo qodobo gaar oo sharcigaas ka baxsan ayadana waxaa way habraaca sharci dejinta way khilaafsan tahay su-aasha kale in la isweydiiyo loo baahan yahay maadaama sharcigaas loo baahan yahay baahidii ay jirto shariicada islaamka muwaafaqsan yahay waa su-aal ayadana dastuurkeena oo mabaadi'da shariicada islaamka iyo maqaasida shariicada ka hadlayo oo qodobo qaar ay ka dhigayaan dastuurka wax kasta oo shariicada islaamka ka soo horjeeda inay waxba ka jirin waa in ayadana la isweydiiyaa qodobkaas shariicada islaamka muwaafaqsan yahay shariicada islaamka muwaafaqsan yahay marka la yiraahdo kadib oo shuruudahaas dhan la buuxiyo yaa loo baahan yahay horta in sharci qorista marka la bilaabo marka hadafka weyn aan u leenahay shuruucda in la aruuriyo waa hadaf oo aad iyo aad muhiim u ah oo dalkan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa iyo jiritaankiisa ilaalinayo waan ognahay arrintan inay waqti iyo juhdi badan ay u baahan tahay dhaqaalo badanna ay u baahan tahay laakiin waxaan ku bilaawnay arrintan isxilqaan guddiga way bilaabeen haddaba shaqadooda shaqada ugu horeyso aan guddigan ka rabno tirakoob rasmi ah in la helo shuruucda dalka oo la yiraahdo maanta haddii lagu weydiiyo imse sharci ee ay Soomaaliya yeelatay maalintii madax banaanida qaadatay maanta waa in number la sheegi karo oo la yiraahdo intaasoo sharci ya Soomaaliya yeelatay markii taas dhacday kadib yaan u baahanahay shuruucdan haddana inaan isu raacayno bahbah si ay isu raacsan yihiin shuruucda garsoorka waa bah shuruucda dhaqaalaha waa bah
shuruucda arrimaha bulshadana waa baha marka inaan sidaas u kala qiibino si dhalinyarta iyo dadka hadda shuruucda baranayo iyo dadka garsooriyaasha iyo xeer ilaalinta oo ka shaqeynayo ay ugu noqoto arrin aad iyo aad u sahlan inay helaan marka kadib waxaa loo baahnaan doonaa in digital loo keedayo oo laga heli karo qofkii u baahdo waxaa kale loo baahan yahay in maktabad loo helo oo shuruucdaas lagu aruuriyo wasaaradda cadaaladda waxay u taagan tahay inay ilaaliso sareynta sharciga inay diyaariso shuruucda dalka aruurintooda iyo inay kala shaqeyso wasaaradaha kale in tala bixina ay siiso wasaaradaha kale ee dowladda sidii ugu wanaagsan oo shuruucda dalka loo qori lahaa loona diyaarin lahaa waxaan ka codsanayaa cid alla ciddi guddigan ay ka soo raastaan caawimaad in la garab istaago jaamacadaha dalkana waxaan ka rajaynayaa insha allahu macluumaadka ay hayaan dhinaca shuruucda inay guddigan la wadaagaan waana arrin anaga dhan aan u taaganahay inaan isku garab istaagno loo baahan yahay